hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku baaqday in la maxkamadeeyo madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo taliyihii ciidamada Liyu Booliska Cabdiraxmaan Cabdilaahi Braale. Hay-adda ayaa sheegtay in halkaasi baaritaan lagu sameeyo gaar ahaan tacadiyada gobolkaasi ka dhacay 10 sano ee la soo dhaafay. Meelaha ay xustay waxaa kamid ah xabsiga dhexe ee loo yaqaano jeel ogaadeen oo aad arkaysaan halkan sawirkiisa waxaa tan ka horeeyay oo soo baxday horaantii July. waxa Human Rights Watch ku sheegtay in gabood fallo ba'an laga geystay xabsigaasi. haddaba Leticia Bader oo ka tirsan xafiiska hay-addan ayaa nooga warantay cadeymaha ay hayaan. Well, of course, as in any criminal investigation, the government would need to start by really... طبعاً sida baaritaanada kale ee dambiyada la xiriira dawladda waxay u baahan tahay inay bilowdo baaritaan madax bannaan oo qotriteer oo 10 sano oo xadgudubyo ah maadaama uu ahaa gobol muddo aan loo ogolayn saxafiyiinta iyo kormeerayaasha waxaa loo baahan yahay in la soo saaro dambiyada. We have over the years documented very... waxaan diiwaan geliyay tacadiyo aad u xun oo ay geysteen ciidamada Itoobiya gaar ahaan 2007 ilaa 2008 iyo dhawaan kuwa ay geysteen Liyu Booliska oo ay ka amar qaadanayeen sidoo kalena ay maamulayeen hogaamiyayaasha maamulka gobolka Soomaalida. marka dadaalka dawladda looga baahan yahay waa baaritaan dhameystiran in si nabad iyo amni ah loo wareysto dadkii badbaaday goobjoogayaasha dambiyadii dhacay 10 sano ee la soo dhaafay iyo in la xaqiijiyo kuwa mas'uulka ka ahaa ha ka mid ahaadaan militariga dawladda ama kuwa gobolka in la xisaabtamo. sidoo kale waxaanu weydiinay Leticia baaritaankan wuxuu ku koobnaa gobolka Soomaalida oo kaliya mise gobolada kale iyo dawladda federaalkana uu saameeyay. Leticia ayaa su'aashan ka jawaabaysa. Absolutely, and this is where we are calling on the new Prime Minister to make sure sababtan ra'iisul wasaaraha cusub aan ugu baaqayno in isbedelkiisa guud uu noqdo mid dhameystiran oo lagu baarayo dambiyada baan ee dhammaan gobolada balse in laga bilaabo gobolka Soomaalida oo xarun u ahayd dambiyo xun kuwa dagaal dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale hadda waxaa jira fursad ah inuu iscasilay hogaamiyihii gobolka oo muddo xilka hayay waxayna taas muhiim u tahay in isbedelka hogaanka uusan noqonin mid hanaanka kaliya ah ku kooban oo aan laga faa'iidin. qaar waxay toos u hoostagayeen hogaanka xoogaga dawladda federaalka marka waa sababta mid aysan arintan ugu koobnayn hogaamiyayaasha gobolada oo kali ah balse wuxuu gaarayaa heerka ugu sareeya ee maamulkii hore ee Itoobiya kaasoo u baahan in la baaro. waa muhiim in dadkan aysan xilkooda oo kali aysan weynin ee lagula xisaabtamo dambiyadii ay geysteen 10 sano ee la soo dhaafay. عليكم السلام. مسجل ويدادا. سباشا. كورن ما سيدا داوا ما كسو غاري بلوغو ورن سيدا خداي. حقي قوم يستوى وحنا عندنا يا مساجد كأن كوتشيفي. هاي. طبعا الباب دي ما نصلح لنوحا لأن تكن. وانقل. الباب دي مش هنصلح لني. وأنا يالي متشفتو إنا نقول بحركة تكتكو مركان كعي أن ركحتو كذي أي نقول قرعين هم يهان على قرعي تبدأنا مركي أن حموي يعني الباب كمية لفوري مركا قراعيستاس مرساس بمسوى قراعيست الباب ما هنيا نرالا قراع نرالا دع هب نرالا دع اي تبين هو كمل كان هاد كيسوي يعني الباب المدفور مركز يعني كيقول دع الباب كان لفوري الباب لفوري هي تبين يجي يسأل هو يعني مقولس كابدا هل كان نمر مقارك مقولس كاسامدا سياسو كلامدا حقي مركز أنا قلي قدريري أنا أقول مركز النير بال مركز النير يقول جنبيسي طبعا الباب دي ما نصلح لنوحا لأن تكن الباب دي مش هنصلح لني
وأنا يالي متشفتو إيمان نور بهرك شفت كتكو واقف مركان كاي أن ركحتو كذي أيين قراعين واقف هم يهران على قراعين تبدلنا مركي أن حموي يعني الباب في ميد لفوري marka garaacistaas marasaas ma soo garaacista albaab ما همي أن على قراع على دع هب أن على دع اي تبدلنا هم كمر كان هاد كي يسوي يعني الباب الميد لفوري واقف مركز يعني كي يقول الباب كان لفوري الباب هي تبدلنا يجي يسأل هو يعني مقولس كابدا هذا نمر مقارك وانقارك ها مقولس كاسامدا سياسو كلامدا واقف حقي مركز يعني قال لي قدريري أنا أقول مركز النير بال واقف مركز النير يقول جنبيسي تبد حقي نين داوع يا كبح يعني قال الله بدي لنا داوع أيوة كبد بالي أنا نكاسة كبد بالي حقي بدي لنا كبد بالي رجي يقول دليفري ولا لا halkee lagu leeyahay mesela masaajidka hortiisa mise ما hortiisa mise تيجي على ربح masaajidka laga soo saaro ما تأتي كالك صار waxaad ka warataa dadka masaajidka ku jiray ma kula daabay ahaayeen ma dhalinyaro ahaayeen maxay ahaayeen daadooda maxaad wax ku qiyaas kartaa يدل وحرت وين دلعي مركوري waxa weeye maxamed هو وين دلعي waan gartay ده أنت مساج كل ما كنت كان كره إن هايكو waan gartay لكن رجوا حو هذا وش كل احتروا ورجعوا ده إلهي ده وصاب هذا إسلاماتكم waan gartay wadada isku jira masaajidka isku kulmay كان مساج كل ما ويجي marka rasaasku waxay idinku qabsatay iyo xabadan idinku xabad masaajidka idinku jooga ها كله شيء يعني جوا قبضت waan gartay ninka kale samarku dibadda u soo baxay rag la soo baxay ayay qabsatay laakiin aniga masaajidka gudihiisa ay ku qabsatay aan ku neerbeel markaas lagu keenay baa lagu soo qaaday marka hore gaashamaligi gaashama inankayga iga soo qaaday inankaaga hadda keenay halkan muxuu ku soo qaaday dhaawaca waa sidee rasaas halkay kaaga dhacday waa iska la naxay halkaas way kaga dhacday sidaan waa u dhacdo maqolaskaas aan u dhacay markaas anigu dhiigii markuu iga dhammaaday yaa aniga miyir igu dambeysay waa miyir baa salaadka maqrib yaa miyirsaday dabadeedna nin baan waryaha i waraabi biyuisii wuxuu ka waran haddaan ku dilo maxaad igu dilaysaa aad ii sheeganaysaa markaasuu yidhi soo kamida hor iman dowladda oo maxaan ogahay waana indhalacay waanigaa dhimaadkay maxaan ogahay macdaa baan ogahay anigu ku dili maayo laakiin nin rag ku dilaya kuu iman dee ilaahay iima keenin dabadeedna raggii idili lahaa saasuu igu yidhi ilaahay kuma keenin ilaahay baa muxuu ahaay naftaada gacantiisa ku haya ilaahay baana kaa qaadi karaa runtii taas waxay ahayd waxay ka waramayaan dadkii goobjoogayaasha ahaa isla markaana lagu dhaawacay deegaanka jaamacad dubbad gaashaamo waxaanu ahaa xaaji xasan maxamed ducaale oo dhaawaciisa lagu dabiibay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer